kalfadhigii 21aad ee ay yeeshaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta ka qabsoomay xafiiska duqa magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay badiba xildhibaanada golaha deegaanka iyadoona halkaasi uu ugu horeyn ka hadlay xogayaha maamulka dawladda hoose oo isagu ka warbixiyay mashaariicdii sanada 2019 ee hirgalay iyo waliba qaabkii ay u baxeen runtii maanta farxad weyn bay inoo tahay inaan isugu nimaadno mid kamid ah shirarkii xildhibaanadu lahaan jireen golaha deegaanku aad iyo aadna idinka mahadnaqaynaa taageerada joogtada ah hal habeen siisaan mudanayaal mashaariicdii 2019 waxay nagu qabsoomeen sidii loogu tala galay waana dhamaad 2-3 mashruuc ayaa harsan kuwaasina waxay ku dhamaanayaan 3 biloodka iminka aynu ku jirno hadduu alla yiraahdo taageeradaana mar labadu ku mahadsantihiin waxaan filayaa sanadkaas sidaasaynu ku sagootinay mashaariicda 2020 halkan maxay tahay aynu ku soo bandhigi doono idinkuna aad kaga doodi doontaan waa 30 mashruuc weeye waana mashaariicdii horumarinta awalba aynu ka shaqayn jirnay oo taaban doona dhinacyada badan ee waxbarashada caafimaadka nabadgelyada wadooyinka bilicda iyo kor u qaadista maxay tahay qashin ururinta iyo nidaaminta maamul wanaaga iyo qaybo badan oo kale oo kamid ah hawlaha awalba aynu qaban jirnay horumarinta degmada ah waxa farxad noo ah inay ku jirto soo jeedin ah 30% in loo kordhiyo mushaharka shaqaaleynaha dawladda hoose maadaama asadka ugu weyn aynu haysano aynu dhamaanteen ku faanaa ay yihiin shaqaalaha weynaha sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo isagu si qoto dheer uga hadlay mashaariicda sanadii 2019 ee hirgalay iyo waliba qaabkii loo qorsheeyay sidoo kale waxa uu duqu ka hadlay mashaariicda 2020 ee la qorsheeyay la doonayo inay fulaan ku soo noqon doona 30 mashruuc oo ka fuli doona magaalada Berbera iyo waliba tuulooyinka laga soo doorto xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera inagu waxaynu in badan maamul ahaan iyo nidaam ahaanba kaga duwanahay waxaan nahay golaha qura ee soo bandhiga miisaaniyadooda markay sameynayaan bulshada ka soo bilaaba golaha keena goluhu uu haddana baaro oo naaqasho dabadeedna haddana uu ansixiyo dabadeedna sanadan ku shaqeyno qorshaha sidaa awgeed inagoo raacayna shuruucda iyo nidaamka dalka u yaala waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa halkan golahan aynu fadhino waxaa laga soo doortay degmada Berbera oo runtii aad u ballaaran 170 kilomitir oo bariya 120 kilomitir oo galbeeda 145 ama 150 kilomitir oo koonfura dhulka sidaa u baaxadda leh ee dadweynihii bulshadiina soo dooratay inay maanta xildhibaan kasta oo golaha deegaanka degmada Berbera kamid ah guri iyo maxaan ku radaa goob laga soo doortay oo aan maanta adeegyadii aanay gaarin inaanay jirin goob kasta maanta miisaaniyadani waxay dhammaan ka fargaraynaysaa wada buuxinaysaa in kastaba ha noqoto 43 tuulo ee hoos yimaanayay shanta degmada Berbera shanta degmo yaryar oo hoos yimaada degmada Bulaxaar Mandheera Daasada Cawo maxaa ku radaa Hagal iyo Laasciile shantaasba in tuulo kasta soo marnay ka soo sameeyay balanqaad tuulo kasta oo halkaasina maanta ay dawladda hoose ee maamulka degmada fulinta ee ay ku hagaysaan inay si joogto ah ay yihiin dad maanta isku dhow oo is haysta waa mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala kaloona runtii ka mahad celinayaa sida mar walba oo keergareysaan aad u ilaalisaan ilaa iyo golaha intii la aasaasay shaqaaleynaha dawladda hoose hadday tahay tirada dadweynaha fursadda shaqo abuurka la siinayo hadday tahay dhalinyarada fursadda la siinayo hadday tahay waxbarashada fursadaha la siinayo iyo hadday tahay caafimaadka fursadaha laga siinayaba sidaa awgeed waxa ugu muhiimsan ee ugu sanad walba ay golahani ka farxiyaan in ku dhow 2,000 oo shaqaalaha oo dawladda hoose degmada Berbera ka shaqeeyaan sanadkanna waxa ugu jira in 30% loo kordhiyo haddana mar kale waxay u farxeen ay u dareemeen bulshadana wakiilka ka tiinsi aan inaba caadi aan ahayn maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.